السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان الكريم كل عام وأنتم بخير. وأنا محمد عبد الله جيسي وهالكان idinku soo gudbi doona qaar kamid ah taariikhda degmada Caleer. Degmada Caleer waxay kamid tahay degmooyinka ugu qadiimsan gobolka Galguduud waxayna dhacdaa dhinaca waqooyi bari ee gobolka. Degmada Caleer waxay 18 kiiloomitir u jirtaa xeebta mareeg ee Badweynta Hindiya. degmada Caleer waxaa markii ugu horeysay ee la dagay ay ahayd sanadkii 1937 waxaana dadka deegaanku ka soo guureen deegaanka mareeg halkaas oo dagaal xoogan ku dhaxmaray ciidamadii Ingiriiska iyo Talyaaniga dagaalkii labaad ee adduunka. sidoo kale halka waxaa deganaa dad isugu jira Hindiya iyo Carab oo markii dambe ay u soo hayaamay degmada Cadalee Baraawe iyo magaalada Muqdisho. degmada Caleer waxaa ka soo jeeda dad taariikhda Soomaaliya baaldahaba ka galay waxaana kamid ahaa halgamayaashii Soomaaliyeed. saddex kamida 13 SWL waxay ka soo jeedaan degmada Caleer waxaana kamid ahaa Usmaan Geedi Raage, Maxamed Cali Nuur iyo Maxamed Faarax Hilowle. sidoo kale Caleer waxaa ka soo jeeda dad taariikhda Soomaaliya baaldahaba ka galay waxaana kamid ahaa generaalkii ugu horeeyay Soomaaliya General Daawud Cabdulle Xirsi. waxaa sidoo kale Caleer ka soo jeeday madaxweyne ku-xigeenkii dowladda kacaanka Xuseen Kulmiye Afrax. sidoo kale Caleer waxaa ka soo jeeda Salaad Gabayre Kadiye, madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dad badan halkaan aan ku soo koobi karin. sidoo kale degmada Caleer waxay caan ku ahayd barashada diinta culumta Islaamka waxaana degmada Caleer looga soo xiriirsan jiray gobollada Mudug, Galguduud iyo Shabeellada Dhexe ilaa koonfurta Soomaaliya. degmada Caleer waxay lahayd mashaa'ikh Soomaaliya caan ka ah waxaana kamid ahaa Sheekh Daawud Culusow, Sheekh Usmaan Xidig iyo culamo kale. degmada Caleer waxay gacanta u gashay maleeshiyada Al-Shabaab 23 Abriil 2010.